waxaa goordhow halkan lagu soo gabagabeeyey munaasabad si heer sare loo soo agaasimay taa oo ay ku qalin bedelanayay arday dhammaysatay heerka koowaad ee jaamacadda Nile University ee magaalada Muqdisho munaasabadda waxaa goobjoog ahaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda maamulka jaamacadda arday macallimiin waalidiin iyo marti sharaf kale oo munaasabadda lagu casuumay ugu horeen waxaa goobta ka hadlay maamulka jaamacadda iyo qaar ka mid ah macallimiinta oo hambaliyada la wadaagay ardayda guusha ay jaamacaddu gaartay oo ah inay soo saartay jiil wax bartay oo ka qalin jabiyay kulliyado kala duwan ay ka mid tahay kulliyadda علومta كمبيوترka kulliyadda caafimaadka kulliyadda dhaqaalaha ardaydaas oo aan insha Allah hadii Ilaahay raadaan ku gudinsiin doono shahaadooyinkii cadeynayay inay aqoonta ka gungaareen waa ku mahadsantihiin aad baan idin soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay inaad nagala soo qayb gashaan xafladda waxbarashada tacliinta sare gaar ahaan taas anagoo ka duulayno haddana waxaan aaminsanahay jaamacadda Nile ahaan in ay noqoto meel hooy u ah ardada danta yar dadka qoysaska saboolka ka soo jeedo inay u noqoto meel lagu gacan qabto ay wax ku bartaan hadii Ilaahay yiraahdo waxaan aaminsanahay fikir ahaan Soomaaliya waxay ku jirtaa marxalad soo kabasho dadkeeduna oo yahay dad sabool ah oo liito marka waxaan u baahanahay institution kasta oo waxbarasho dugsi sare hoose dhexe jaamacad waa loo baahan yahay baahi weyn ayuuna wadanku u qabaa waxbarashada sidaas ayaan aaminsanahay hadii aan nahay madaxda jaamacadda Nile taasaana ka duulayna waxaan u taaganahay inaan ummadda Soomaaliyeed ee waliba gaar ahaan aan awood u lahayn inay wax bartaan ay dhaqaale ahaan iskabaan inaan gacanta qabanno inay macallimiin ajaanib ay la timaado oo ay macallimiintaas u yihiin Kenyaati iyo Ugandese ay ka dhisi doonaan qaybaha looga baahan yahay gudaha wadanka ardada ka qalin jibiyay waxaan leeyahay ama ka qalin jibin doonta macallimiintaas reer Uganda ama reer Kenya wixii bedelay waa idinka sidaas awgeed waxaan rabaa inaad ka reebataan aqoonta ay xambaarsan yihiin iyadoo jaamacadda Nile idigu tala gashay inay aqoonteeda ka maqnaaday dibadda idiga keentay gudaha ugu keentay insha Allah taasna waxaa lagu mahadsan mas'uuliyiinta jaamacadda Nile ugu weyn yahay Dr. Shaacir maamulka guud sidoo wada maqlaysa insha Allah wuxuu ballan qaaday inuu ardada garab taagnaa doono insha Allah tii la yiraahdo iyada oo jaamacaddu ay leedahay faracyo qaar ka mid ah ardayda oo dhankooda wajiyada laga dheehan karay farxadda ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta qaranka waxaan halkan uga mahad celinayaa maamulka jaamacadda Nile University heerarkooda kala duwan maamulka sare maamulka dhexe iyo maamulka hooseba waxa kaloon halkan uga mahad celinayaa ka soo qaybgalayaasha na soo sharfay ee nagu soo sharfay inay nagala soo qayb galaan xafladda qalin bedelashadayada waxaan idin leeyahay idinkuna aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin kun iyo kow jeer waad mahadsantihiin waxaan halkan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo ardayda qalin bedelanaysa inaan kula dardaarmo hal qodob oo muhiim ah arday marka aad qalin bedelato macnaheedu ma aha inay waxbarashadii dhammaatay inay soo xidhantay heerkii daraasada aad wax baranaysay macnaheedu ma aha macnaheedu ma aha inaad intaad xafiis fadhiisato aad maamusho oo kaliya macnaheedu ma aha waxaa loo baahan yahay ikhtirac inaad samaysaan cilmi baadhis inaad samaysaan cilmiga aad barateen inaad dib ugu noqoteen oo intii aad klaaska ku soo qaadateen saddex laabkeed inaad raadisaan oo dib idinku aad u samaysaan self study ayaa loo baahan yahay agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Ismaaciil Yuusuf oo munaasabadda goobjoog ahaa ayaa hambaliyada kadib ardayda la wadaagay in ay sameeyaan shaqo abuur maadaama xilligan dalka uusan ka jirin wax shaqo ah ama dawladdu aysan sameyn shaqo abuur wuxuuna madaxda jaamacadda kula dardaarmay in dhalinyarada loo sameeyo shaqo abuur si aysan u niyad jabin laba arimood ayaan tala ku jeedinaa inaad master degree aaraadsataan dhaqaalaha ku bixinaysa idinka aad shaqaysataan qofku waa shaqo abuur loo sameyn karaa jaamacadaha qaar arday shaqo abuur ay u sameynayaan shaqo abuurka ama idinka shaqo abuur samaysta saa ogtihiin dawladdeena hadda jirta
muddadan 40 sano oo madaxweyne farmaajo uu joogo ma jirin shaqaale dawladeed la qaatay kaliya shaqaale la tayeynayay maxaa yeelay dhaqaalihii dalka wuxuu ku baxay amniga saa darteeda 5,000 oo shaqaale oo aan ku filnayn dalka ayaa ka shaqeeya xafiisyada dawladda laakiin marka la kordhinayo waxay u baahan tahay dhaqaale cusub in la soo kordhiyo caalamkan waxay leeyihiin nabadda wax ka qabta kadib dhaqaale la insiina marka waxaan rabnaa ardayga ku fikiraya mushahar waxaa kaaga fiican in noqoto loo shaqeeyo aan noqoto oo ah in shaqo abuur la sameeyo aad samaystaan koox wixii la idin bara jaamacadda oo idin caawinaysa aad kala tashataan shaqo abuur ku samaystaan cabdulqaadir fantastic warbaahinta qaranka magaalada muqdisho